gaadiidka dadweynaha iyagoo ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood ayaa maalintii labaad waxa ay ku jiraan shaqo ka fadhiisi taasoo dadka dadweynaha ay dhibaato weyn kala kulmeen xilligan oo ay dabaysha xagaaga uga dhacayso si weyn magaalada Laascaanood gudaheeda. shaqa ka fadhiisigan ayaa waxa ay basasku kaga cabanayaan gaadiid yaryar oo dhawaantan ku soo biiray ka dhex shaqaynta gudaha magaalada gaadiidka yaryar oo loo yaqaano bajaajka gaadiidkana hadda ku soo biiray ka dhex shaqaynta gudaha magaalada Laascaanood ayaa iyagu waxay yihiin kuwa markiiba si degdeg ah ula dhaqaaqa dadka la saaro iyagoo dadka raacayaan ay tiradoodu aad u yar tahay baslayaasha ayaa iyagu shaqadan ay joojiyeen waxaa si weyn looga dareemay gudaha magaalada Laascaanood iyadoo guud ahaan dadkii u soo shaqo tagayay gudaha magaalada iyo goobaha shaqooyinka ay dhibaato kala kulmeen soo magaalada iyadoo haatan ay magaalada ka dhacayso dabayl lixaad loo dhibaato u keenaysa dadka awoodooda aadka u yar tahay iyo caruurta maamulka gobolka ayaa wuxuu ka hadlay in si degdeg ah loo xalin doono arrintan soo wajahday dadweynaha ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood sidii xal looga gaari lahaa loona dhexdhexaadin lahaa gaadiidleyda basaska gudaha magaalada Laascaanood iyagoo ka dhex shaqeeya iyo baabuurta bajaajka ee haatan ku soo biiraysa dadweynaha ee gudaha magaalada Laascaanood ayaa saaka waxa dadweynaha qaadaya baabuurta tagaasida ay u raacayaan xaafadaha kala duwan waa kan mid ka mid ah dadka tagaasida yaryar wata isagu u waramay TV-ga caalamiga Somali Channel ka waran baleen saaka waxaad u dhaqaaqdeen qoladiina baabuurta lagu xaragoodin jireen dadka qaadaan waxaan u dhaqaaqnay oo aan dadka u qaadaynaa dadkii baan waxaan weynay wax u shaqeeya hooyooyinka iyo waxa weeyaan dabayl xagaagii hayaan aragnay xaafadihii baan nala ku yimid markaasana la yiri wax nala qaado ma hayno basaskiina waxa weeyaan baabuurtii markii basaska lahaa way baaki garaysteen arrintaas waxay kaliftay inaanu dadka u shaqeyno annaguna aanu ka shaqeysano markii aanu aragnay inay waajibaadkoodii ay lahaayeen basasnimo ay gabeen marka dhibaatadani waxay ka socotaa gaari bijaaj baa magaalada yimi oo ku soo kordhay basaslayaashii arrin la xidhiidha gaari bijaajka cadho ka kacday maxay gaari bijaajkani ay noogu soo korodhay baa baslayaashii ay u baaki gareeyeen basaskii على قف أنت بسسك قاعد شيء بان قاعدنا maxaad leedahay basaska waxaan leeyahay waxaan shacabka reer Laascaanood u sheegayaa haddii ay basaskii idin shaqeyn waayeen hooyooyin annaga idin shaqeynayna arrinku si kastaba ha noqday xaaladda ayaa haatan waxay tahay mid dhibaato weyn u keenaysa dadweynaha ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood iyo aan si degdeg ah wax looga qabanin dhibaatadan ay ka cabanayaan dadweynuhu iyo baslayaasha khilaafkan ka kala dhaxeeya iyaga iyo baabuurta yaryar ee bajaajka maamulka gobolka Sool iyo ka degmada ayaa waxay sheegeen in ay wax ka qaban doonaan khilaafkan u dhaxeeya lana bilaabi doono nidaam kala haga basaska iyo bajaajkan ku soo biiraya gudaha magaalada Laascaanood dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa iyagu waxa ay had iyo jeer jecel yihiin in ay raacaan gaadiidka bajaajka oo markiiba la dhaqaaqaya taasoo walaac fara badan ku abuurtay macaamiishii faraha badnayd ay heli lahaayeen iyagoo ka baqay baslayaashu in ay waayaan Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood